بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقال كنا ما تحن كارك دونا سيتي تلك مقال كاسكو ساركتين بالقاب كسي آذو فدود له هلي كرو دمان باسوردا دا يعني أكونada استعماشو أما بيش يعني أكونada كلها ده إنترنت كهديهين جوجل أكون هديهين فيسبوك دمان أكون كستو إنترنت كواس استعماشو وكوكا تسن تلفون كاغا هل منيد كودهي قابك لوجو هليو قف كلي gacanta hada hal minute gudaheed telefonkaaga gacanta ku dhigay waliba qaab aad u fudud iyo meel aan ka filanayn muuqaalka waxaan ku arki doonaa sida bal saada kornayay tilmaamay username-yada iyo password-ada ku muhiimka ee website-yada sida aad ka isticmaashay aad kaydsatay uu qof telefonkaaga hal minute gudaheed gacan ku helay uu helayo isagoo 1 minute wax gaariye kaga faa'iideysanayo muuqaalka soo waxaan ku arki doonaa bal qaabka aad ugu hortagayso in qaabkan loogu sameeyo telefonkaaga bal hadaba saynu aragno qaabkan ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta gooraan waxaan doonayaa bal inaan idin tilmaamo marka la joogo internetka waxaan isticmaalaa browser dabcan waxaan ku kaydsanaa username iyo password marka qaab loo eego waa faa'iido oo taas waxay ka hortagtaa in username-yadeena meelaha public ah markaynu joogno aynaan gelin tusaale kale haddii browserkaaga username-ka akoonkaaga google ama facebook ama akoon kasta oo internetka aad isticmaasho uu kuugu save garaysan yahay haddii aad meel public joogto ama agtaada dad joogaan ama dad agtaada joogaan waxay ka caawinaysaa haddaad u baahato inaad akoonkaaga access garayso inaad bilaa password ku access garayso bal haddaba inagoo taa faa'iidadeeda muuqaalka waxaan ku arki doonaa haddaba faa'iida darrada kaydsigaana inaga iman karta ee aynu doonayno inaynu isku eegno hadda halkan waxaa ii yaalla saaritaan telefoonkan inaan for administrating ku sameynaya halkan waxaa ii yaalla dabcan anigu waxaan isticmaalaa chrome browseradu waa isku wada mid browser kasta oo aad isticmaalayso qaabkan ayaa loo heli karaa noocoo doono ha noqdo firefox ha noqdo UC browser ha noqdo google chrome ha noqdo whatever brave browser ha noqdo noocoo doono hadda halkan markaan interface-kaygan joogo waxaan doonayaa bal inaan tago qaybtan home-ka qaybta dabcan markaan ku dhufto waxaan doonayaa inaan setting-ka sii tago halkan waxay aragtaan akoonka igu jira dabcan haddaan imika dhankan password-iska ku dhufto waan hoos u dego halkan waxaan ku aragtaan intaas oo password baa ku kaydsan dabcan telefoonkayga dhammaantood waxay ku kaydsan yihiin browserkan markaa waxaan ugu saan hadda ognahay faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah dabcan dee in si qaab fudud aad u geli karto haddaba bal waxaan arki doonaa qaabka password-dan saad aragtaan hadda imika wadi ka wada qarsoon yihiin qaarkood dabcan for privacy reasons laakiin balka qaabka qof ay hal minute gudahood uu heli karo hadda haddii aan ku dhufto kuwan mid ka mid tusaale waxaan doonayaa kan hooseeya inaan tago haddii aan ku dhufto halkan maxaa aragtaan website-ka username-ka iyo halkan oo ah username-ka laftarkiisa iyo password-kii dabcan website-kan ku jira dabcan uu muuqanaya oo qofka kama qarinayo gacanta telefoonka ku hayo ama adiga ha noqdo ama dabcan telefoonka qof kale gacanta qaabkan aan ugu hayo username-kaagana kama qarinayo qof laakiin wuxuu ka qarinaya dabcan saa aragtaan password-kaaga laakiin halkan maxaa ku qoran halkan waxa ku taalla xidig oo eega dabcan wuxuu weydiinayaa password-ka mobile-kaaga haddaba tan waxay ku xidhantahay qofkani hadduu password-ka telefoonkaaga hayo inuu si fudud ku helo hadda anugu telefoonkan aan gacanta ku hayo dabcan telefoon aan password-kiisa hayo weeye haddii aan geliyo dabcan password-ki wuu tusay waxaan filaya password-ka wuu idiin muuqanaya dabcan dhijidada u dambeeya ayaan idin tusinaya dabcan kuwa hore waan idinka qarinaya qaar ka mid ah saas ayuu hal minute gudahood qof ugu helayaa password-kaaga haddaba bal qaabkeebaad ugu hortagaysaa dabcan laba mid ku dadaal ugu horreyn ku dadaal inaad isticmaasho password manager taas waxay ka caawinaysaa in password-daada aanad ku kaydin browser-kaaga oo qof sidan ugu helin dabcan muuqaalada soo socda ka mid waxaan ku arki doonaa qaabka aad password manager u isticmaalayso si completely aad uga hortagto ilowga password-dada adigoo password-dada internetka iyo aad isticmaasho oo dhan ku gelinaya password manager-ka device kasta ama mobile kasta oo adduunka yaalo oo aad isticmaasho adiguna oo aad email-ka ay gelisana password-daada waad ka helaysaa muuqaalka dabcan muuqaalada soo socda mid ka mid ah baan ku soo bandhigi doonaa dabcan iska ilaali xalkeeda kaliya waxa weeye inaad hesho haddiiba aad isticmaalaysa tan oo aad dabcan aanad ka maarmaynin inaad yani ka hortagtana mid labaad ku dadaal fadlan ugu yaraan ka hortag in telefoonkaaga password-kiisa uusan qof kale gacanta ku dhigin soo kale waxaad ka hortagtaa in telefoonkaaga aan qofiiba gacanta ku dhigin qof adiga kaa baxsan dabcan way yar adagtay in markaan idin leeyahay telefoonkaaga qof aan adiga haniyuu gacanta ku dhigin laakiin waad u ogolaan kartaa qof inuu gacanta telefoonkaaga u dhigo laakiin ugu yaraan waa inaad laba option isticmaashaa mid ka mid waxa weeye in qofka tusaale kale wuxuu ku odhan karaa qof telefoonkaaga aan call ka dirsado ama telefoon kala hadlo oo qof dabcan la hadlo
xalka kaliya waxa weeye inaad u ogolaan karto qofka applicationka callka midaan ahayn inuusan isticmaalin. dabcan waxaa jira muuqaal aynu kusoo bandhignay taas dabcan xagga sare cardskana ka eega ama descriptionka ka eega ama dabcan xagga commentiyada ka eega. dabcan saddexdaaba waxaan ku dadaali doonaa inaan idiin soo dhigo in telefoonkaada aad u ogolaato qofku applicationka u baahan yahay. tusaale haddii qofku doonayo inuu dhanka sawirada galo inaad u ogolaan karto applicationka sawirada mid aan ahayn inuusan geli karin, oo hadduu isku dayo inuu galo uu application mobilku aan u ogolaanayn. qodobka labaadna waxa weeye inaad u ogolaato qofku inuu isticmaalo guest mode oo ah telefoonada dambe waxay leeyihiin guest mode in dabcan as users loo isticmaalo, oo qofka waxay soo raaciyeen guest mode oo ah qof yani marti oo kala in telefoonka aad u dhiibi karto. laakiin guest mode wuxuu leeyahay dabcan markii la soo diyaarinayo waxyaalo badan qofku contactskaaga ma arki karo sawirada ku kaydsan telefoonkaaga, ma arki karo username-yada completely mobilkaaga cusub oo kala loo dhiibaya. wax allaale waxa xogta mobilkaaga ku kaydsan qofku ma arki karo. labada xal mooyaane dabcan inta kale waxaad u fududahay ama vulnerable u tahay in sidan fudud lagu helo passwordadaada. marka aad list muuqaalkana dabcan xagga cardska waan soo dhigi doonaa ama descriptionka guest mode-kana dabcan muuqaalo soo socda ayaan kusoo bandhigi doonaa insha Allah. sidoo kale ku dadaal in aanad passwordadaada ku kaydin browserka unless ay muhiim ku tahay oo dabcan aanad ka maarmin. dabcan waxaan isku dayi doonaa muuqaalada soo socda mid kamid inaan kusoo bandhigno hadda ka horna sheegay inaan kusoo bandhigayo mid kamid ah passwordada ugu wanaagsan, password managerada ugu wanaagsan oo bilaash ama free ah. dhammaan passwordada internetka aad isticmaashan aad ku kaydinayso mobil kasta oo aad qaadatana ay kugu jirayaan haddaad kaliya emailka ay geliso. dabcan muuqaalka intana aynu ugu talagalnay muuqaalka intana waynu ku koobsanaynaa. haddii aad fadlan muuqaalkan inuu wax ka faa'iideeyna like inoo saar, haddii aanad waxba ka faa'iideen dislike saar, hadday tahay markii kugu horeysaad soo booqatay kanalka una aragto mid aad wax ka faa'iidi kartana subscribe inoo saar. intaynu muuqaalkan ku kulmi doono waxaan idin rajaynaynaa annaga iyo idinkaba khayr. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.